habeen wanaagsan saaxiibayaal qaybtan waxaan idinkula wadaagi doonaa muqdisho caawa waxaa lagu xusayaa 66 sano guuridii ka soo wareegatay marka Soomaaliya ay xorooday haddaba Soomaaliya xurmiya mise way kala tagsan tahay waxaan rabaa caawa in idin la wadaago warbixin xasaasi ku aadan xaaladda dalka uu ku sugan yahay madaxweynaha Soomaaliya oo caawa afka furtay weerarkii ahaana ku qaaday kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeedo muxuu madaxweynuhu ka yiri qadiyada Soomaaliland waanu dul istaagi doonaa caawa xaaladda Puntland iyo arrimo kale oo dhinacyo badan taabanayo oo uu madaxweyne xasan sheekh uu ka hadlay hadallada kale mas'uuliyiintu ay jeediyeenna waan idin la wadaagi doonaa sidoo kale waxa caawa isla qaybtan idinku soo gudbin doonaa dawladda Soomaaliya oo si aan hore loo arag markii ugu horeysay kaga hadashay qorshaheeda ku wajahan ciidamada ay ka qoranayso Puntland haddaba Puntland miyay doonaysaa inay afgambiso dawladdu maxay saarintan ka tiri barnaamijkeena ayaanu caawa ku dul istaagi doonaa 66 sano kadib caawa waxaa la xusayaa markii ay gobolada waqooyi ee dalkeena ka xoroobeen isticmaalkii markaasi Ingiriiska iyada oo waliba la og yahay in madaxweyne Cirro uu maanta ka soo laabtay magaalada Qudus la haysto Israa'iil halkaasi oo aqoonsi beenaadku ka soo qaatay haddaba soo dhawaada saaxiibayaal caawa barnaamijkeena waa barnaamij gaar ah oo xiiso leh waxaanu ku eegeynaa 66 sano kadib xornimadii maxaynu dhaxalnay maxay dadka Soomaaliyeed ay markaasi ka heleen 66 sano kadib maxaa laga joogaa dawladnimada noo dhisan waa sidee halkee ayaa loo socdaa halkeese dadka Soomaaliyeed ay tahay 66 sano kadib inay maanta ay joogaan barnaamijkeena caawa arrimahaas ayaanu ku faaqidi doonaa idinka igala qayb galayo oo aragtidiina qaybta faalada ayaad ugu la wadaagi kartaan maxaanu faa'iidnay 66 sano kadib hogaamiyaashii Soomaalida oo wali talada ku heshiila madaxweynihii oo madaxweynadii sharciga ah uu ka dhamaaday dawladda oo ku adkeysanayso in dastuurka cusub 5 sano madaxweynuhu uu sharciyad uu siinayo iyo xaaladaha guud ee dalka ka taagan aragtida waa muhiim dhinac walba ka eegi karta qaybta hoose faalada ayaan ugu reebi kartaa soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad saaxiib nagu cusub muuqaalka like saar subscribe saar barteen YouTube-ka rukum wararkeena iyo dhacdooyinka xiiso leh oo aanu goor balka ku sameeyno waa tahay aanu ku bilaawno wararkeena 66 sano kadib caawa Soomaaliya waxay u dabaaldegaysaa xornimadii ay gaartay oo 66 sano ay ka soo wareegatay laakiin waxa cajiib ah in dalal badan oo gobolka ku yaalo oo maanta inaga nooga dambeeyay xornimada ay heestaan dawladnimo casri ah Kenya ay kamid tahay marka Soomaaliya oo 1960kii xornimadeeda qaadatay ayaa caawa u dabaaldegayso 66 sano guuridii ka soo wareegatay iyadoo dawladda u dhisan aan heshiis lagu ahayn Puntland iyo Jubbaland dawladda madaxweyne xasan sheekh uu hogaamiyo 2026 ee ka soo horjeedaan dastuurkii dalka oo aan heshiis lagu ahayn oo dawladana dastuur ay sheegayso dhinacyada kale ee hay'adaha dawliga ah ee maamul goboleedyaduna ay ku dhagan yihiin dastuurkii 2012 ayaanu caawa u dabaaldegaynaa 66 sano guuridii ka soo wareegatay dawladnimada Soomaaliya markii aynu ka xoroonay isticmaalka sidoo kale waxaanu u dabaaldegaynaa 66 sano guuridii ka soo wareegatay markii isticmaalka aanu ka xoroonay oo markii ugu horeysay oo dhul Soomaali ay leedahay laga taagay calanka Soomaaliya ama markii ugu horeysay dhul Soomaali ay leedahay uu ka xoroobo isticmaalka oo dhinaca iyo gobolada waqooyi ee dalkeena ay tahay halkii noqotay ama nasiib ku heshay gobolada waqooyi ee dalkeena caawa waxaa loo dabaaldegayaa iyada oo madaxweynihii Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro uu la tagay aqoonsi uu ka keenay dhinaca iyo maamulka gumeysiga Yahuuda maanta ayuu Hargeysa ka dagay waxa uu halkaasi la tagay aqoonsi uu ka keenay Israa'iil dawladda Soomaaliya inkastoo aysan aqoonsaneen sharciyada aqoonsi beenaadkaas haddana waxay muujinaysaa heerka la joogo 2026 haddaba waxaanu indhaha la iska tiri karin in 2026 dalkeenu uusan u dabaaldegi karin midnimo balse uu u dabaaldegayo ama toddobaadka xorriyadda ugu jiro iyadoo qayb ka mid ah dalka ay kala tageen maamulkii Soomaaliland aan gacanta lagu helin Puntland iyo Jubbaland dawladdii ay wada joogin dawladdii ay noqotay kaliya mid awoodeedu inta badan ay ku soo koobmatay maamulada dawladda taabacsan iyo sidoo kale Muqdisho 66 sano kadib Soomaaliya dadkeedu waxay naawilayaan caawa inay dabaaldegaan iyagoo dawlad awood buuxda leh dalka oo xuduudihiisu ciidanka militariga Soomaaliya meel walba ay ka joogaan iyada oo
dowladdeenu ay tahay dowlad qubad leh dunidu ganacsatada Soomaalidu aysan maal gashan dalalka diriska ee soo aaminaan dalkooda in badan oo dhalinyaradeena ka mid ah iyagoo qurbaha u socdo badda aysan ku dhamaan lahayn haddaba caawa xaaladdu waa sidaas madaxweynaha ayaa munaasabada ka qayb galaya marka halka joogno yaanu rabnay inaanu daawadayaashina xusuusino 2026 waxaanu joognaa iyadoo Soomaalidu taladooda heshiiska u ahayn 66 sano ayaana laga joogaa markii ay gumaysuhu ku xoroobeen waxa ay Soomaalidu ku heshiin laadahay hogaamiyaasha siyaasadda inay dhistaan dawlad heshiis ay ku yihiin inkastoo dalku dawladda ka jirto haddana heshiis siyaasadeed aysan gaarin hogaamiyaasha Soomaalidu waxa ay muujinaysaa halka la joogo wali iyada oo magaaladii caasimadana 2026 mucaarad hubaysan iyo dawladdu ay ku dhex dirirayaan waa tahay markaanu intaasi kaga gudbo inahaasi oo ku sharaxaynay dhacdooyinka Soomaalidu ay ku sugan yihiin iyadoo loo dabaaldegay 66 sano guridii ka soo wareegatay markii dalkeenu markii ugu horeysay isticmaalka Ingiriiska qayb ka mid ah dalkeena uu ku xoroobay toddobaadka xorriyadda ayaa lagu jira kooda luuliyana waxay ku aasaysan tahay markii koonfurta dalkeena iyaduna isticmaalkii Talyaaniga uu ku xoroobay midnimadiina ay dhacday oo waqooyi iyo koonfur ay midoobeen toddobaadka waa toddobaadka xorriyadda laakiin waxaan indhaha iska tiri karin halka maanta aynu joogno bal aan idin daayo khudbadaha madaxda dawladda oo madaxweyne xasan sheekh uu ka mid yahay waxaan u weerarayaa xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeedo iyo sidoo kale maamulada dalka ka jira qaarkood si gaar ah arinta Puntland galkeed oo soo hadal qaadaya iyo arrimo kale oo xasaasi ah waxa ugu mudan arinta waqooyi bari iyo arinta maamulka Somaliland iyo sida uu kaga hadlay marka madaxweynaha khudbadiisa ayaa rabaa inay la wadaago haddii halkan la soo gaaro waa maasan tahay qaybta dambe ee faalada waxaan ugu reebi kartaa hadalka dhinaca kale ee wasiirka warfaafinta dawladda Soomaaliya waxa uu ka yiri Cabditax Qaasim ciidanka dawladda Soomaaliya ee geesay qayb ka mid ah deegaanada Puntland iyo ciidamada ka qoranayso isaguna xog cusub oo xasaasi u bixiyay waxa uu sheegay dawladdu inay xaq u leedahay inay ciidan qorato warkaas oo idil daawada aragtada hoos ayaa ugu reebi kartaa mid la ceen ah nabadgelyo muqdishada maanta aan ku noolnahay dhismayaasha cusub wadooyinka cusub ganacsiga cusub brandiska internationalka ee cusub ay maanta ay ku yaalaan muqdishada cusub ee maanta caawa 3 subaxnimo arooriyada hadaad soo kacdo maqaayad aad wax ka cunto aad ka helayso iyo gaari taxi ah ama maxaan ku raadaay bajaaj aad raacdo aad ka helayso wadada marayso oo haddii aadan intaas doonin aad intaad ku lugayso wadada adoo kalsooni badan qab aad gees magaalada muqdisho aad isaga marayso ninna kuma riyoonaynin in ay muddadaas suurtagal tahay waa ku wada riyoonaynay maanaan rajo dhigin weligeen ma rajo dhigin laakiin muddadaasi inay suurtagal ku tahay taas waxay daliil ku tahay dalkani muddo yar oo kooban oo sidaas oo kale ah meeshii uu lahaa ee uu ka daahay inuu ku gaari karo ayay daliil u tahay dib u soo kabashada dib u soo hinqashada ummadda Soomaaliyeed ku samaysan qofnimadooda iyo ummadnimadooda ku jirta ayay daliil u tahay sidaas daraadeed aad iyo aad ayaan u aaminsanahay haddii aan ku guuleysano dabarada ku xirxiran ummadda ee socodkeeda gaabinayo ee u diidaya in ay maxaan ku raadaay meelaha maxaan ku raadaay boholaha iyo qararka inay ka tallaabsato ama ka booda u diidaya haddii aan ka goyno waxaan aaminsanahay muddo kooban in aan dalkeennu meeshii uu 36 sano oo la soo dhaafay uu ku gaari lahaa ka dheer inuu ku gaari karo caawa waxaan isugu nimiday annagoo hoos taagan calan Soomaaliyeed oo xor ah inaan u dabaal degno 66 sano 66 sano cumriga ummadaha ama cumriga qofka bini aadamka waa waqti aad iyo aad u dheer laakiin cumriga ummadaha 66 sano kuma dheera kuma waxna kuma ah ummaduhu waa kuwa kumanaan kun oo sano jira dal hebel 5 kun oo sano xadaarad uu leeyahay iyo 1 sano xadaarad uu leeyahay ayaad maqashaan jaamacad hebel 1 sano ayay furantaa ayaad maqashaan laakiin qof hebel 1 sano jira qof la leeyahay wali maydaan arag marka caawa waa habeenkaas farxadda weyn xusuusta weyn quruxda
iyo haybadda ay leedahay halkan looga hadlay oo markii ugu horreysay oo dhul Soomaaliyeed oo xor ah calan Soomaaliyeed oo xor ah laga taago oo ay ka dhacday gobollada waqooyiga Soomaaliya taariikhdaas weligeed sidaasay ahaanaysaa kumanaan kunoo sano kadib 26 Juun marka la gaaro waa la sheegayaa habeenkaasi sidoo ahay waxaa la sheegayaa caawa halkan laga sheegay suugaantii habeenkan la tiriyay waxaa la sheegayaa dadkii habeenkan joogay ee nasiibku u helay inay maxaan ku iraahdaa waxaan dad badan qaar badan oo Soomaali ah ayaa naftooda u huray riyadaas quruxda badan ee xornimada iyo gobnimada ah qaarna waxay u bixiyeen codkooda hadduu uu yahay fanaan hadduu yahay abwaan iyo hadduu yahay maxaan ku iraahdaa siyaasi dadka gubaabiya intaba qaar kale waxay bixiyeen dhallinyaranimadoodii xabsiyo ayaa loo geeyey oo muddadan ay ku jireen qaar kalena waxay bixiyeen naftoodii waa u dhinteen waa la dilay ama ayagoo halgamaya ayay ku naf waayeen waxaa xusuus iyo xus mudan jiilkii calanka Soomaaliyeed gaarsiiyey dunida markii Soomaaliya ku biirtay qurumaha xorta ah ee adduunka ku nool dad Soomaaliyeed ayaa maanta fursadaha iyo facility-ga jira iyo maxaan ku iraahdaa gaadiidka iyo iska warqabka isgaarsiinta jirta ayadoo aanay jirin calanka inta qaaday dunida daafeeda dacaladeeda geeyay meelaha ummadaha gobta ah ay isugu yimaadaan oo dhan dhax dhigay oo geeyay kuwaasi ma haysanin ma lahayn dawlad weyn oo maxaan ku iraahdaa ka bixisa qarashaadka gabdhaha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogta barigaas kuwii qurbaha joogay khaasatan markii jabciyada qurmaha ka dhacaysay la tagay ee u badnaa dadka waqooyiga Soomaaliyeed daga ayay ahaayeen kuwii martigeliyay soo dhaweeyay maxaan ku iraahdaa gaadiid iyo waxay u baahnaayeen u sameeyay kuwii siday magaca iyo haybadda iyo calanka Soomaaliya ee qaramada midoobay markaa inay geeyaan raba dacwadeena haddaba walaalayaal maanta dalkeenu wuxuu taagan yahay isgoys ayuu taagan yahay jihada aan isgoyskaasi ka aadnana wax badan oo badan ayay ku tartaa ama ka bedeshaa ama u dhintaa jiilasha soo socda maaha inteena maanta nool horay ayaa dad badan oo mas'uuliyiin ah isgoysyo inta soo istaageen ay wadada khaldan oo isgoyskaas ka baxda ay raaceen ma dhahayo si urakaca ayay u raaceen laakiin waxaan dhihi karaa duruufihii jiray way ku dayoobeen ama way ku habaabeen wadadaas wada sax ma ahayn mar dambana way ka qoomameeyeen in badan oo kamida way sheegeen inay ku habaabeen maanta sa alxamdulillah wada sax ayaan aadnay sanadihii ugu dambeeyay dhan ma aha maanta kaliya sanadihii ugu dambeeyay dhan marba talaab ayaan sii qaadaynay noo sii siqinaysa xagga wanaaga waa run ama waa dhab ma wajahaynaa khataro haa waa wajahaynaa khataro laakiin sidoo kale waxaan wajahaynaa fursado aan ka faa'iidaysan karno waa dhab ma wajahaynaa dhibaatooyin iyo culaysyo haa waa wajahaynaa laakiin sidoo kale waxaan wajahaynaa rajo noo muuqato oo aan gaari karno muddo 10 sano ah Soomaaliya waxaa dunida looga yaqaanay burbur dagaal sokeeye xag jirnimo iyo kala qaybsanaan dadku ay kala qaybsan yihiin dad badan waxay aaminsanaayeen Soomaaliya inaysan dib u soo laaban doonin laakiin waxaan leenahay dad badan oo kale waxay aaminsanaayeen in dawladnimada Soomaaliyeed ay weligeed dabar go'naan doonto dad badan oo kale waxay rumaysnaayeen in shacabka Soomaaliyeed ay ku sii jiri doonaan nuglaanshiyo jiilal badan oo soo socda laakiin
walaalayaal ma aysan garanaynin shacabka Soomaaliyeed ma aysan garanaynin adkaysigeenna ma aysan garanayn sharafkeenna iyo sida uu noola weyn yahay oo aan u ilaalinayno ma aysan garanayn in qaran uu dhaawacmi karo balse uusan dhiman karin marba haddii dadkiisu diidan yahay in ay isdhiibaan ismaanaan dhiibin mana isdhiibayno waan soo taabanay waan muujinnay inaan dib u kici karno oon dib u hinqan karno oon kayrkeen muddo kooban weliba aan dhaafi doonno waxaan xasuustaa maalmo badan oo la soo dhaafay inaan carruur waxbarayay xilli dalku uusan lahayn hay-ado dowladeed oo shaqaynaya waxaan xasuustaa fasallo aan lahayn qalab iyo adeegyo ku filan waxaan xasuustaa waalidiin wax kasta waayay marka laga reebo rajada ay ka qabaan mustaqbalka carruurtooda oo la raadinayo waxbarasho si ay carruurtaasi u badbaadaan waalidka wiilka uu dhalay ama gabadha uu dhalay waxbarasho la raadinayay ma badbaadinaynin gabadhiisa ama wiilkiisa oo keliya wuxuu badbaadinayay qaran dhan ayuu badbaadinayay waa kuwa maanta waddooyinka taagan ayagoo calanka lulayo waa kuwa maanta ay ka hor muuqato rajada casriga ah ee qarniga 21aad kuwii maalintaas sidaas ku soo bilaabay waxbarashada iyo fasallada inay tagaan sanadahaas adag waxaan dhisnay dugsiyo waxaan dhisnay jaamacado waxaan abuurnay goobo ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku rumaysan karaan mustaqbal ka baxsan rajo xumi iyo cabsi maanta hay-adihii waxbarasho ee aan qaybta ka ahaa anigu aasaaskoodii waxay waxbaraan kumanaan kun oo arday Soomaaliyeed ah waxaan bogaadinayaa dadkii berigaas 20 sano 30 sano ka hor in dhalinyarada Soomaaliyeed fursad waxbarasho la siiyo qorayba yani waxbay ku sii dhiibaan waday ku sii furtaan dugsi hoose dhexe ma la heli karaa iyo maalin joognay waa la helay war ardadii dugsiga hoose dhexe waa ka baxday dugsi sare ma loo heli karaa ayaan maalin kala joognay waa ka soo baxnay war dugsigii sare waa laga soo baxay jaamacada ma loo heli karaa maanta 1 iyo 2 iyo 3 dalkeenu maalintii uu burburayay hal jaamacadu lahaa maantana jaamacado badan ayuu leeyahay jaamacaduhu waxay ku yaalaan dhul aan weligeed jaamacad aanay tegin intii aan dowladda ahayn maanta dhinac kasta marka la fiiriyo aad iyo aad ayaan uga rajo fiicannahay ugana qurux badannahay ugana mustaqbal cadnahay maalintii aan burburayna sidii aan ahayn runtii maantaan ka awood badannahay maantaan ka fursado badannahay ama dunidu ha noo abuurto fursadahaas ama dadaalkeenna aan ku abuuranno waxaan caddaynay ummadda Soomaaliyeed ay caddaysay qaran inaan lagu dhisi karin hub iyo rasaas iyo xabado iyo qarax inaan qaran lagu dhisi karin ayaan caddaynay qaran waxaa dib loogu dhisaa marka dadkiisu ay mar kale rumaystaan qarankooda iyo micnahoodii iyo awoodiisa iyo quruxda uu leeyahay marka dhalinyaradu ay mar kale riyoodaan oo ay ku riyoodaan waxa qayrkood dunida uu gaaray in ay gaaraan iyo maalinta ay gaarayaan marka muwaadiniintu dareemaan in mustaqbalka ayagu ay leeyihiin ayagana uu sugayo inay hagaajiyaan maalintaas ayaa ah maalinta ay istaagaan waxaan rabaa walaalayaal inaan mar kale dib aan ugu noqdo xorriyaddii iyo maalmihii wacnaa ee la soo dhaafay iyo kuwa soo socda intaba waxaan rabaa si gaar ah inaan halkaan uga xuso gobollada waqooyi ee Soomaaliya ee loo yaqaan Somaliland dadka Soomaaliyeed ee ku nool waa dadka sharaftaas leh waa dadka taariikhdaas leh waa dadka maalmihii adkaa ee madoobaa ee gumaysigu u jiray xataa
iska caabinta gumaysiga ku caanbaxay. maanta oo duruufo gaara ay jiraanna waxaan hubaa in badan oo aabbayaashaas hore la caqli ah ee aan ka liidan in ay maantana waqooyiga Soomaaliya ku nool yihiin. waqooyiga Soomaaliya dadka degan dad badan oo wax bartay, dad badan oo xigmad leh, dad badan oo damiir diineed leh ayaa ku jira. ku badan weliba ku badan. waxaan leeyahay marka walaalayaal, maanta qarniga 21aad oo dunidii isdoonanayso, oo dalali isdoonanayaan, oo markay ugu yaraadaan siyaasadda iyo dowladnimada waa halkeeda, bal dhaqaalaha aan isku darsanno oo suuqa aan isu furanno oo aan nolol fiican kor u qaadno ay ku wada haminayaan. kala joogis annaga marna dow nooma ah. waxaan rabaa walaalayaal, waxa aad tirsanaysaan ama aad tabanaysaan horeyna waa uga garawnay, haddana inaan ka garawnaan rabna. ka daali mayno, ka caajisi mayno. dadkaasi wixii ay tabteen si allaale iyo sidii ay uga calool fayoobaa karaan inaan yeelno ma ka daalayno, mana ka caajisayno. xaggooda na waxaan rajaynaynaa inaan garaawshiya ka helno. maanta waxay naga taagan tahay alaysa minkum rajulun rashiid. war kuwii shalay inta xorriyadda doonay xor noqday ayadoo afarti kale ee Soomaaliyeed weli aanay xor noqonin, yiri xorriyadda aan helna keligeen waxba nooma tartee Soomaali aan doonano. fikir iyo talo iyo go'aan gob ah oo dad gob ah ay gaaraan u ahaa. haddii fikirkaas iyo go'aankaasi uu la kulmay waqti dambe xusuus murugo leh iyo xanuun tabasho leh, tabasho xanuun leh uu la kulmay, waxaan leeyahay walaalayaal, ummadda Soomaaliyeed idinma badin, idinmana yeelin. haddii shakhsiyaad iyo xukun iyo talo dad markaas joogay ay sidaa u taliyeen, maanta ma noola, intooda badan ma noola. haddii ay wax ka nool yihiin, haddii kale maba noolaba. dad cusuboon maanta talada maalintaas aan waxba ku lahayn, haddii xanuun iyo dhibaato idin gaartay aan talo ku lahayn, aan wax ka geysan, ra'yigooda aan waxba ka ahayn, bal diidanaa oo maalintaa ay yaallaan suugaantii ay ka tiriyeen tacaddiga meeshaa ka dhacaya sida ay u diidan yihiin. waayo dadka Soomaaliyeed ee maanta jooga dowladda federaalka ee Soomaaliya ee anigu aan labada jeer odaga ka ahay, waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego inaan aad iyo aad u jeclayn una dadaalnay wax kasta oo xanuunkaas murugadaas xanuun kala bixin kara inaan samayno, laakiin ma aanan ku guulaysan. hadday aan samaynay mushkiladii xalismi lahayd, mushkiladii weli ma xalismin. siyaasaadkeenna iyo policeskeenna ku saabsan Somaliland iyo gobollada waqooyi guud ahaan dib u eegisaan ku samaynaynaa iyo icaadatu nadar si aan u helno fikir iyo talo iyo ra'yi iyo siyaasad policy walaalahaas qanci kara oo ku qanci kara in ay walaalahood mar kale la midoobaan yaan baadi goobaynaa haddii alla yidhaah. waxaan u taagnaanaynaa oo aanan ka caajisaynin geed kasta iyo goor kastaba inaan u taagnaano qadiyaddaas. wixii aan habboonayn oo aan dadkaas u qalmin, maba ahaba annaga dadkaas aan u qalmin inaan diidno waa u taagnaanaynaa. wax kasta oo maslaxadda hooyada iyo aabbaha Soomaaliyeed ee carruurta korsanaya ee ku nool gobolladaas miyi iyo magaalaba maslaxad yar ay ugu jirto oo nololeed oo haybadeed oo sharafeed ay ugu jirtane
bannaankay naga ooli doonaan haddii alla yidhaah. waxaan u taagnaan doonaa cawo iyo casar inaan baadi goobno oo aan daba kacno oo aanan ka caajisin oo aanan ka wahsan oo aanan ka caroonin haddii kuwa maxaanku irahdaa garaadkoodu aanu gaarin ay maxaanku irahdaa hadalla xun ku hadaaqaan. waxaan ka tacsiyeynaynaa kuweenna deegaanada kale ku nool ee hadallada aan habboonayn ee hadallada aan laayiqa ahayn ee hadallada aanan u qalmin marmarka qaarkood ay ka soo yeeraan. waa ka tacsiyeynaynaa, waana ka xunnahay, waana ka raalligelinaynaa haddii alla yidhaah. kuwaas aan hadda ka tacsiyeynayno u dhigmane waxba ka soo qaadi mayno warkooda haddii alla yidhaah. si kastaba ha ahaatee soomaaliya maanta fursado ayay leedahay walaalayaal, meel kastoo ay joogtaba. ididiilada maanta soomaaliya ka muuqata, jamhuuriyaddii soomaaliya ee 60kii midowday ee dhisantay keliya maaha ee 3 kaloo maqan ayaa ididiiladaas iyo rajadaas ku faraxsan. mar kasta oo aan tagno meel soomaaliya ay ku nooshahay ee xuduudaha ka baxsan, waxaan aragnaa inay noo hambalyeynayaan, inay ku faraxsan yihiin tallaabada aan hore u qaadnay, inay ku faraxsan yihiin rajada soo muuqato, inay ku faraxsan yihiin maxaanku irahdaye fursadaha soo socda ee soo muuqda. taasaa waxaa daliil u ah fursad kasta oo meel ka mida soomaaliya laga helaahay inay tahay fursad soomaalida oo dhan ay heshay. dowladnimo xoogaysan oo codkeeda inta caalamiga ah uu xoogaystay markaan sii gaarnaba waxay maslaxad u tahay muwaadin kasta ama aan dhaho shaqsi kasta oo soomaali ah meel kasta oo caalamka uu ku nool yahay ayaa waxay u tahay fursad. waxaan rabaa wax yar inaan ka sheego. bari dhaweyto waxaad maqasheen in la yiri European Unionka ayaa visa restriction kusoo rogay Soomaalida, oo waa maxay Soomaalidu dadkeedii ayay dib in loo soo celiyo diiday. waxaan ummadda Soomaaliyeed ee European Unionka iyo dadka Yurub joogaba inaan u sheego maanaan diidin dadkeenna ma diidin, dalkaanay leeyihiin, mana diidi karno. waxaan isweydiinaynaa waxay tahay keliya dadkaasi sida loo soo celinayaan su-aala ka qabnaa. qof kasta oo midabkeennaan leh, muuqaalkeenna leh, ee geeska Afrika ku nool ayaa Soomaalinimo isu dhiibay si uu u helo political asylum. muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliya dalkaanay leeyihiin, lama diidayo, lamana diidi karo. laakiin waxaan waaye arag u ahaynon u soo joognay dad la soo celiyey waa Soomaali la yiri markay inta yimaadeen inaanay Soomaali ahayn, af Soomaali aanay aqoonin, Soomaalina aanay ahayn. laakiin maalintay isdhiibayeen ayay Soomaali inay yihiin ay sheegteen. maanta marka waxaan taaganahay war aan hubinno dadkani Soomaali ma yihiin, muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliya ma yihiin. waa soo qaadanaynaa. haddii ayan ahayn meesha yihiin aan idiin sheegaynaa la doonta. inta aan isku haysanno waa kayfiyada iyo sida loo keenayo, laakiin maanaan diidin, mana diidi karno. dadka Soomaaliyeed ee muhaajiriinta ah ee Yurub tegay, kuwii sharci la siiyey ee sharci helay ee dalalkaas degay, dalalkii siiyey waa mahadsan yihiin, waa u mahad celinaynaa. sababtu wax kasta ha ahaatee kuwii waayey sharci waxaan rabnaa inay dalka ku soo noqdaan. annagaa rabno maalin walbaan diyaarada inta kiraynaan ka soo daabulnaa meelaha ay joogaan. sida haddaba ra-iisul wasaare ku-xigeenku halkan ka sheegayay, waa soo diyaaradaan kiraynaan u dirnaa, wafuudaan u dirnaa. war dadka meeshaa laga sheegay Soomaali mi muwaadiniin Soomaaliyeed mi soo hubiya waa yihiin markay yiraan maalinta daba diyaarada u tagto waa soo qaadaa, waa keentaa. annagaa soo qaadnoo keenno. ma awoodno, ma dhihi karno, mana rabno, kuma nafi karno muwaadin Soomaaliyeed oo meel ku dhibaataysan in aan dhegaysano ama iska dhagatirno. safaaradaheennan awaamir cadcad siinay in ay mar walba ka warqabaan una foojignaadaan arrintaas. marka arrintaasina waxaan rabaa
fursaddan inuu uga faa'iidaysto sidaa iraado waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ciidda caawa aan u dabaaldegaynaa waa taariikh nagu suntan 26 juun iyo soomaali sidaasay isku yihiin kalama haraan 26 juun maalintaad maqasho soomaaliyaad maqlaysaa 1 juulaay maalintaad maqasho soomaaliyaad maqlaysaa kalama haraan sidaas daraaddeed waxa aan naga haraynin oo saas ah oo taariikhdeenna iyo nolosheenna ka mid ah waa inaan qurxinnaa waa inaan xusnaa waa inaan cashara ka barannaa wixii lasoo dhaafay oo aan sheegnaa waxa soo socdo mar kale iyo mar kale hambalyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maalinta maanta u dabaaldegaya dal iyo dibadba waxaan leenahay hambalyo 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 aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu